hogaamiyaha mandaqada Carbeed ugu saameynta iyo awoodda badan, shakhsi awood ballaaran ku leh siyaasadda dibadda ee gobolkaas iyo tan galbeedka. Waa kuma ninkay New York Times ku magacaawday shakhsiga ugu awoodda badan dunida Carabta, ahna mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu awoodda badan dunida. Mohammed bin Zayed Al Nahyan waa dhaxal sugaha imaaradda Abu Dhabi oo ah imaaradda ugu weyn uguna dhaqaalaha badan toddobada imaaradood ay ka kooban tahay Imaaraadka Carabta, waana imaaradda leh awoodda ugu sarreysa dalka uuna mar walba amiirkeedu yahay madaxweynaha dalka. Mohammed waa 58 jir ka mid ah wiilashii uu dhalay aasaasihii ahna madaxweynihii ugu horreeyay midowga Imaaraadka Carabta ama waddanka Imaaraadka. Waa ninka lagu magacaabo Zayd bin Suldaan Al Nahyan, kaas oo loo tixgeliyay inuu ahaa aabbaha qaranka. Sanadii 2003 ayuu aabihiis oo markaas waddanka maamulayay u magacaabay ku-xigeenka dhaxal sugaha imaaradda Abu Dhabi. Sanad kadib 2004 waxaa geeriyooday aabihiisa, waxaana xilka amiirnimada iyo madaxweynenimada la wareegay walaalkiisa ka weynaa oo markaas ahaa dhaxal sugaha. Waa ninka lagu magacaabo Khalifa bin Zayd Al Nahyan. Xilligaas Mohammed waxa uu si toos ah u noqday dhaxal sugaha Abu Dhabi, waxa kale oo uu noqday ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidanka qaranka. Mohammed waxa uu ahaa nin gaaray jagada generaalnimo maadaama uu ka tirsanaa ciidamada cirka. Waa nin aad u saameyn badan oo waxa uu boos weyn ku lahaa arrimaha dhaqaalaha dalka. Walaalkii Khalifa ahna madaxweynaha dalka waxaa sanadii 2014 ku dhacay cudurka loo yaqaano macaanka oo aad ula dhibtooday. Wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa siyaasadda dalka iyo awoodda arrimaha dibaddaba la wareegay Mohammed oo amarada iyo sharciyadaba ka imaanayeen. Waxa uu noqday mid si toos ah u maamula xafiiska amiirka ahna madaxweynaha dalka, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay hogaamiyaha iyo awoodda ugu sarreysa dalka. Mas-uulkani waa nin aad u saameyn badan oo afkaartiisu ay raacsan yihiin galbeedka iyo habnololeedkooda iyo siyaasadoodaba. Waa nin aad hormuud u ah dadka lidiga ku ah dhaqdhaqaaqyada islaamiga. Waxaa xusid mudan inuu hormuud ka ahaa daciifintii awooddii ikhwaanul muslimiinka ee ka dagaalamayay Masar iyo ururo kale oo badan, iyo inuu meesha ka saaray dowladdii Mursi. Sidoo kale uu gacan ku siiyey inuu sii qabsado dalkaas. Sidoo kale waxa uu gacan ka geystay in Yemen lagu duulo oo siyaasad ahaan lala wareego ayuu hormuud u ahaa. Waa nin saaxiib dhow la ah madaxda galbeedka. Waxaa kaloo la xusaa inuu qayb ka ahaa ololihii Trump ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa la xusaa inuu qayb weyn ku lahaa in Rex Tillerson oo ahaa xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka xilka laga qaado loona dhiibo Mark Pompeo. Mas-uulkani waa nin alaaba hormuud u ah in wadamada Carabta ay la jaan qaadaan siyaasadda iyo sharciyada galbeedka. Waxa uuna waqti iyo hanti badan ku baxshaa in Carabta ay ka gudubto nidaamka diiniga ah ayna raacdo sharciyada aadamaha uu degsaday maanta ay dunida isku maamusho. Arrintaasna waxaa lagu garan karaa sida Imaaraadku uu u yahay dal wax badan ka gadisan dalalka kale ee Carabta. Waxa uu door weyn ka qaatay in Mohammed bin Salmaan laga dhigo dhaxal sugaha dalka Sacuudiga, waayo waa shakhsi ay isku afkaar yihiin, isku siyaasad yihiin. Sidoo kale isbedelada Sacuudiga ka dhacay buu hormuud u yahay. Waxa uuna doonayaa inay Sacuudiga noqoto sida Imaaraadka oo kale, ayna ka gudubto nidaamka diiniga ayna u gudubto nidaamka reer galbeedka. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xiriir u jaridii Qatar uu hormuud u ahaa oo isaga keenay. New York Times ayaa ku tilmaantay shakhsiga ugu saameynta iyo awoodda badan hogaamiyaasha Carabta. Sidoo kale New York Times waxa ay xustay inuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan dunida, waana nin mandiqada bariga dhexe awood aad u ballaaran ku leh.